kusoo dhawaada barnaamijka maxay kula tahay magacaygu waa Ridwaan Xaaji Cabdiwali barnaamijkan waxa uu noqon doonaa mid kamid ah barnaamijyada ka baxa telefishinka caalamiga ee RAD TV waxaana inta badan daawadayaashu meel walbo ay joogaan ay uga qayb qaadan doonaan barnaamijkaasi inay fikradahooda iyo talooyinkooda ku soo gudbiyaan barnaamijkaasi waxa kale oo uu ka hadli doonaa mararka qaarkood waxyaabaha aanu isleenahay waxa ay muhiim u yihiin in daawadayaashu ay ka qayb galaan iyagoo adeegsan doona taleefano ay nagu soo wici doonaan email iyo qoraallo kale oo dhinaca mobile-ka ah laakiin waxaan jeclaan lahaa inta barnaamijkaasi aanan bilaabin gaar ahaan dhinaca taleefanada oo toddobaadyada soo socda aanu bilaabi doono hadduu eebaha awoodda lihi idmo in marka hore aan sii isticmaalno qaar ka mid ah emailada ay daawadayaashu na soo gaarsiiyeen kuwaasi oo ah kuwa talooyin iyo tusaalaba ay doonayaan inay telefishinka kula wadaagaan qaar ka mid ah haddaba daawadayaasha emailadooda aan soo koobay iyadoo ay dabcan aad u badan yihiin emailadaasi oo 1000 email ay kor u dhaafayaan ayaa haddana waxaan telefishinku uu samayn doonaa in qaar ka mid ah emailadaasi uu idin soo gudbiyo iyo waxyaabaha daawadayaashu ay dabcan jeclaan lahaayeen inay nala qaybsadaan Hinda Nuur oo degan dalkaasi Denmark waxay leedahay barnaamijkiinu waa mid aad u wanaagsan waana wax dabcan loo riyaaqo oo casri ah Fawziya Ahmed oo iyadana magaalada Muqdisho joogta waxay leedahay telefishinka RAD waa telefishin cusub oo aan jeclaystay waxaanan jeclaan lahaa in halkaasi hawsha aad ka sii wadaan Doola Yare waxa emailkan uu ka soo diray magaalada Burco waxaana uu leeyahay waxaan aad iyo aad ugu farxay markii aan daawaday barnaamijyada telefishinkaasi ka baxa waxaanan dhammaan maamulayaasha iyo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha telefishinka aan ugu hambalyeynaya hawsha weyn ee ay ku talaabsadeen aad baad u mahadsan tahay warqadana waxa na soo gaarsiiyay isna Cabdalle Farax Harbi waxa uu leeyahay salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa bahda hawshan sida weyn ay ugu guuleysteen waxaan u arkaa inuu yahay mid muhiim ah oo xilligan loo baahnaa waxa uu ku tilmaamay Cabdalle qoraalka marka uu soo dirayay in telefishinku uu yahay wiil waqtigii loo baahnaa dhashay waxaana uu yiri waxaan mar walbaba idinka doonaynaa in aad qaabka telefishinku uu ku bilowday iyo qaab ka si fiican aad ku sii wadaan qaar ka mid ah daawadayaasha waxa iyana ay soo gudbiyeen fariimo aad u badan oo ay ku codsanayaan in satellite-ka ay doonayaan sidii ay uga daawan lahaayeen qaaradan Yurub iyo waqooyiga America daawadayaasha sharafta leh haddaba waxaanu la socodsiinaynaa in ay ka daawan doonaan ama ay ka daawan karaan xilligan aaladda internetka oo cinwaankeedu uu yahay radtv.com iyadoo barnaamijyadu halkaasi ay si toos ah uga baxayaan ka hor inta telefishinka aanu gaarin oo mustaqbalka dhow ay telefishinka kala socon doonaan Mahdi Maxamuud oo isna degan dalkaasi Sweden waxa uu leeyahay waxaan doonayaa in aad ku dartaan telefishinka RAD dhinaca internetka inaanu ka daawan karno si la mid ah telefishinada caalamiga ee Al Jazeera BBC-da iyo CNN waxaanan Mahdi Maxamuud dabcan aan mar kale jecelahay in sida qaar ka mid ah daawadayaashuba ay soo qoreen telefishinka uu kala socon karo maadaama uu dalkaasi Sweden degan yahay aaladda internetka oo si toos ah aad dabcan uga daawan doontid warqad uu isna dalkan Britain ka soo diray Shariif Xasan nin lagu magacaabo waxa uu leeyahay xilligan waxaan jeclaan lahaa inaan idinla qaybsado in aan tilmaamo in warbaahintu ay ka mid tahay awoodaha waaweyn ee caalamka ka jira waxaanan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee telefishinka daawanaya iyo dadka shaqaalahaba aan ka codsan lahaa in telefishinkaasi ay ka dhigaan mid horumarsan oo aqoon iyo hufnaan ku salaysan waxaana uu sidoo kale yiri waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan shaqaalaha telefishinka meel walba oo ay joogaan
emailada qaarkood iyana waxaa ka mid ah email dalkaasi Australia uu ka soo diray Cabdi Jabbaar Ibrahim oo marka hore ku bilaabay hambalyada kadib waxa aan dhammaan dadka Soomaalida ee dalkan Australia ku nool qaar fara badan oo kamid ah ay si weyn ugu hambalyeynayaan maamulka iyo shaqaalaha furitaanka telefishinka. Cabdi Jabbaar waxa uu sheegay in dadka Soomaalida ee Australia ay si weyn ugu farxeen marka ay heleen telefishin si isdaba joog ah barnaamijyo kala duwan oo ay u baahnayeen ugu soo tabinaya xaafadaha iyo guryaha ay ku nool yihiin. Maxamed Axmed oo isna emailkan ka soo diray dalkaasi Mareykanka waxa uu codsanayaa in maamulayaasha iyo shaqaalaha telefishinkuba ay horay u sii wadaan in telefishinku uu soo gaaro dalkaasi Mareykanka si ay uga daawadaan telefishinka isla markaana haatan uu kala socdo aaladda internetka oo barnaamijyada halkaasi uu ka daawado. waxaana uu yiri si degdeg ah ayaanu uga codsanaynaa maamulka in hawshaasi ay u guda galaan. Amina Maxamuud oo iyaduna emailkan ay sheegin meesha ay ka soo qortay waxa ay codsatay in telefishinkani uu noqdo mid dhexdhexaad ah. waxa kaloo ay xustay in ay tahay arrin fudud oo sahli karta in dadka Soomaalidu ay si weyn ula socdaan wararka dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla ayna taasi suurto gelin karto in ay in badan oo kamid ah telefishinada caalamku aanay sida telefishinada Soomaaliga sida Raad TV oo kale aanay wararka u soo tabin. waxaana ay xustay inay arrintaasi muhiim tahay. Saciid Bahwal waxa uu yiri waa arrin wanaagsan in telefishin Soomaali ah uu ku soo kordho warbaahinta Soomaalida. waxaana maamulka iyo shaqaalaha aan mar walba leeyahay hawshani waa hawl adag sida aad ku bilowdeen ha ku socoto oo ah barnaamijyada iyo wararka xaqaa'iqa iyo dhexdhexaadnimada ku salaysan. Farxaan Maxamuud waxa uu leeyahay telefishinku ilaa iyo hadda wali ma aanan ka daawan barnaamij ciyaaro ah. waxaan codsanaynaa in barnaamij ciyaaro ah si degdeg ah telefishinku u bilaabo. aad ayuu ugu mahadsan yahay dabcan fariintaasi oo muhiim ah oo maamulka iyo shaqaalahaba ay hadda si weyn ula socdaan isla markaana aan filayo in barnaamijkaasi uu noqon doono mid kamid ah barnaamijyada ka baxa telefishinka. Cabdisalaan Aadan waxa uu yiri waxaan soo dhaweynayaa telefishin Soomaaliyeed oo dhexdhexaad ah oo wariyayaasha ka shaqeynaya ay yihiin kuwo aan in badan magacyadooda maqli jiray. warqadan waxa ka soo diray magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka Cabdi Xasan waxa uu leeyahay sida uu TV-gu ku bilowday aad ayay u sareysaa. waxaan si joogto ah u daawadaa TV-ga Raad oo dadka Mareykanka inta badan waxa ay jeclaan lahaayeen inay helaan telefishin ay weheshadaan. waxaana TV-gani uu noqon doonaa mid aan weheshano. Jamaal Gonweer oo dalka South Africa isna ka soo diray email waxa uu leeyahay waxaan aad ugu farxay markii aan arkay telefishinka Raad anigoo jooga magaalada Durban. waxaana uu xusay dabcan in dalka South Africa uu ka mid yahay dalalka haatan sida weyn ay dadka Soomaalidu uga shaqeystaan isla markaana community-ga ama jaaliyadda Soomaalidu uu yahay mid aad u yar oo ay si weyn dabcan ugu tahay muhiimad inay helaan telefishin wararkoodii iyo barnaamijyadoodii ay kala socdaan. Rashid Caraale waxa uu leeyahay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maskaxdii ka dambeysay telefishinka Raad TV maamulayaasha iyo shaqaalaha telefishinkaasi oo dhammaantoodba aan codadkooda maqli jiray laakiin telefishinku waxa uu igu soo kordhiyay in muuqoodii aan arkay qaar kamid ah wariyaashii Soomaalida oo inta badan aan dhageysan jiray. Maxamed Nuur Abukar waxa uu leeyahay waaba bariyay bilicsan arooriye baxsan maalin boqoran. telefishinkani waxaan filayaa in uu noqon doono mid la mid ah telefishin caalami ah oo dhammaan dadka afka Soomaaliga ay ka helaan warar iyo barnaamijyo isu dheelitiran oo ay u baahan yihiin si la mid ah telefishinka caalamiga ee Al Jazeera. daawadayaal saaxiibayaal waxaan jeclaan lahaa inaan intaas ku soo koobo waraaqaha ama emailada ay daawadayaashuna soo gaarsiiyeen
iyadoo dabcan inta aanan taleefanka daawadayaasha aanan u gudbinin ama aysan taleefanada nagula soo xiriirin oo barnaamijkan uu bilaabi doono aanu email-adooda dabcan sii wadi doono inaanu akhrino waxaan idinka codsanaynaa in talooyinkiina iyo fikradaha aad jeclaan lahaydeen in telefishinka aad usoo gudbisaan aad noogu soo hagaajisaan emailka cinwaankiisu uu yahay info@ratv.com waxaana sidoo kale maamulayaasha iyo shaqaalaha telefishinku ay idin rajeynayaan khayr iyo cumri dheer